كلهم wanaagsan saaxiibyaal mar kale oo ku faraxsanahay in aan ismaqalno mar kale waxaan la hadlayaa waalidiinta ilmaha kale ee ku hadlo iskoolka ama meelaha xanaanada ilmaha aadaan aragtiin halka qish ay sheegayo ee fiican waxa uu yahay dadka xanaanada haya mar walba waxa ay fiiriyaan ilmahaaga sida ay adiga ku tixgeliyaan ama ay kugu xiisaan marka aad iimaanaysid meesha aad soo doonaysid cunugaagu waa inuu kugu soo orto sida fiican markaad geenaysid la soo oynaya hakiin intaas waxa ka sii fiican markaad timaado waxaad weydiisaa xog waraysi fiiri cunto ma cunay maanta seebu ahaa ma xuma cunuga inta timaadid dhar inta ula boogtaa la carrin warayso dadka sababtoo ah mar walba fiiri marka aad meesha timaadid qof ayaa kuu soo baxay ama meesha maamul ah ama macallin ah ama qof xanaaneeya wuxuu rabaa inaad wax weydiisid xogtii diyaar waxaan adag ama kuu sheegay inaad wax weydiisid iimaana meesha istaaga markasta waxaa laga rabaa in aad tustid in cunugaaga aad marka mar walba ka taxadar in ilmahaaga xogtooda aad la socoto haddii aad cunugga inta gacanta ku dhigta iskala baxdo xog lagu sheegi lahaa ayaa qasooysa asna waxa uu isku dayayaa in uu diiwaankiyo ama se lagaa mashquulo hadhowta hadday wax kugu soo baxaan ma jiro xiriir adiga iyo iskoolka idiin dhaxayn kara qof walba marka waxaan kula talinayaa in ilmihiina si aad xiriir la yeelataan meelaha xanaanada ama iskoolka ay leeyihiin sababtoo ah qofka maanta markaad xiriir la yeelataan ama macalinka ama qofka kale wax walba kuu sheega sida uu kuu weydiiyey adiga waraysidaas oo kale waxyaabaha ku saabsan cunugaaga adna waa inaad markaad timaado aad wadaysid iyo markaad keenaysidba aad waraysataa marka intaas ayaa maantay ama caawa aan isku sheegaynaa waa mahadsantihiin kulan kale wanaagsan